Charlie Charlie waxa uu haybad u lahaa jiliinka majaajilada. Waxa uu aaminsanaa in majaajiladu ay tahay waxa kaliya dadka isdhexgalkooda iyo farxadooda sare loogu qaadi karo. Charlie filimadiisa hore waxa uu ku jili jiray aamusnaanta. Waxa uu yiri in dad laga qosliyo uma baahna hadal. Markii uu dhamaaday dagaalkii koowaad ee adduunka, waxa sare u qaadmay jilida aflaamada. Charlie Charlie waxa uu u bedelay filimadiisii kuwa hadal uu ku jiro. Waxa uu yiri waxa la soo gaaray xilligii hadalka lagu jili lahaa filimada, waayo dadku waxa ay galeen nabad, waxayna rabaan in ay maqlaan hadallada dadka. Charlie Charlie waxa uu jilay filimo fara badan sida filimka Cunuga, filimkii Dahabka, iyo filimkii loogu magac daray Iftiinka Magaalada, filimka Dhibaatada Cusub, iyo filimkii Xuduuda. Sanadkii 1940 waxa soo ifbaxay keligii taliyihii Hitler. Waxa uu Charlie Charlie ka sameeyay filim kaas oo ku jilay dictatornimada. Filimku waxa uu ku jiray qaab majaajila dadkii daawaday inay jeclaysteen. Filimkan Charlie waxa uu ku jilay Mareykanka. Markii uu jilay filimka ayaa waxa soo ifbaxday in Charlie Charlie laga musaafiriyo Mareykanka. sababtuna waxay ahayd waxa uu jilay naasiyiintii xilligaas awoodda ku lahaa dunida. Mareykankana uma baahnayn in xilliga Jarmalkii isaga dagaal u dhaxmaro. Charlie marka laga soo buriyay Mareykanka waxa uu soo aaday dhankan Midowgii Sofiyeeti ee Shuuciyadda. Waxa uu halkaas ka sii waday jilada filimadiisii. Sanadkii 1952 wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay shaacisay in Charlie Charlie laga bilaabo sanadkan uusan ku soo laaban karin Mareykanka maadaama Midowga Sofiyeeti uu ku biiray. Charlie Charlie waxa uu guursaday 4 jeer. xaaska koowaad ayaa ahayd Melda Maris, tan labaad ayaa ahayd Lilita, waxaan ku ahayd magacii riwaayadda Little Grey, waxayna u dhashay 2 cunug. xaaska saddexaadna waxa uu ahaa Bolita Judar. xaaska afraad ee Charlie ayaa noqotay O'Neill oo uu dhalay qoraanka caanka ahaa ee Ogin. aabaheed kuma raacsanayn O'Neill in ay guursato Charlie maadaama 54 jir Charlie xilligaa uu ahaa. Charlie Charlie sanadkii 1927 iyo sanadkii 1971 waxa uu ku guuleystay abaalmarinta caanka ee Oscar-ka, taas oo la siiyo dadka majaajilistayaasha iyo dunida dadka saameynta ku leh. sanadkii 1977 waxa geeriyooday Charlie Charlie isagoo jiro 88 sano. geerida Charlie ayaa waxa soo xaadiray xilligii la aasay 20 madaxweyne wax ka badan iyo malaayiin dad oo taageerayaal dunida u ahaa, iyagoo wata sawiradiisa ilmana ay ka muuqato. ugu dambeyntii markii uu geeriyooday Charlie Charlie lana aasay ayaa qabrigii lagala baxay waana la xaday. booliiska ayaa fahmay 11 isbuuc kadib baadigoobka booliiska waa ay soo heleen. Charlie Charlie waxaa maanta qabrigiisa lagu ilaaliyaa 6 feet oo dhulka hoostiisa ah, taas oo si weyn loogu ilaaliyo magaalada London ee dalka Ingiriiska. haddii uu ku qanciyay videogan, share dhe, like saar, subscribe dhe channelka si innagana ay noogu noqoto dhiirigelin wax badan aan u soo saarno. When you look in my eyes, tell me what you see.